runtii sharaf weyn ayay ii tahay inaan caawa halkan aan idinku casumo villa Soomaaliya oo cashadan sharafta leh aad aqbashaan aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahadcelinayaa aqbalaadda aad aqbasheen runtii waad la socotaan dowladnimadan Soomaaliya meesha ka soo bilaabatay artay ka soo bilaabatay iyo leadershipka hogaaminta walaalkeen Ismaaciil Umar Geelle iyo dadka walaalaheena ay reer Djibouti runtii juhdiga ay galiyeen iyo waqtiga ay galiyeen inay Soomaaliya ay dib cagaheeda ugu istaagto dowladdii ugu horeysay ku meel gaarka ahaa ee Djibouti lagu soo dhisay hadda meesha aan marayno 19 sano kadib waxaan isleeyahay waxaan gaarnay horumar weyn oo runtii dhinac walba ah inkastoo ay caqabado badan haystaan khaasatan dhanka amniga oo aan la dagaalamayno cadow aynan arkayn oo la yiraahdo al-shabaab oo xiriir dheer la leh al-qaacida runtii waxay geysteen burbur aad iyo aad u weyn laakiin waxay u eg tahay inaan guulaysanayno insha Allah bacdama aan reform ku sameynay ciidanka qalabka sida bacdama aan siinay tababaro iyo qalabkii u baahnaayeen bacdama aan niyadoodii iyo moralkoodii aan kor u qaadnay iyadoo ay dhankaasi ay wax ka socdaan yaan haddana uma fadhino amniga kaliya dhinacyo badan yaan waxaan ka sameynay horumar hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay xiriirka dibadda iyo hadday tahay xiriirkeena runtii wada shaqaynteena gudaha ah oo ahayd wixiina lagu doortay oo aan ku kaambeyn garanay oo aan niri waxaan keenaynaa xasilooni siyaasadeed oo gudaheena ah oo ay ka bilaabato dowladda dhexdeeda saad ogtihiin dowladdan hadda waxay ku socotaa 3 sano oo aan iskhilaaf lahayn waa taariikh cusub maxaa yeelay markii isbedel dhaco idinku waa ogtihiin Djibouti waxa way dal stable ah oo la aamini karo oo maalgashi badan ku socdo waxa taas keeneen waxay tahay waxa weeye stability political stability markii la arkayo dawladdu inay ay degan tahay oo maxaan ku raahdaa ay xasiloon tahay oo aysan isbedel joogta aysan lahayn cidii maalgashanaysa way ogtahay waxay maalgashanayso cidii xiriir la sameynaysa way ogtahay inuu systemkan jiraayo laakiin haddii sanad walbaba uu isbedel yimaado oo wasiirkii 6 biloodba markii uu wax fiiriyo waxba baran maxaa yeelay dowladnimo 6 bilood iyo 1 sano iyo 2 sano iyo laguma barto muddo qaadataa markii wasiirkii uu joogo 6 bilood oo ay ku bilaabato maxaa la yiraahdaa turmoil ay ku bilaabato la bedelo haddana 6 bilood kale la keeno ama 1 sano kale la keeno dawlad kale cid ku imaanaysa iyo cid ku aaminaysa iyo cid wax kula qabsanaysa ma jirto maxaa yeelay stability ma haysatid waxaan ku guulaysanay in dawladda dhexe stability ay yeelato waxaan u soconay in dawlad goboleedyada naftooda aan gaarno oo dalka oo dhan uu galo political stability iyadana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa gaarinaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa gaarinaa marka hore waa inaad ka bilaawdo gudahaaga markii gudahaaga aad keento xasilooni siyaasadeed oo aad ku darto dawlad wanaag waxa gaari kartaa marka dawlad goboleedyadii marka inaad xiriir fiican la yeelato wada shaqayn fiican la yeesho iyaguna qayb ay ka noqdaan xasiloonida intaas waxa dheer iyada naftigeeda dawladaha dariska oo muhiim u ah runtii horumarkeena qayb ka ah waan u baahanahay iyaga naftigooda inaan ka helno xasilooni siyaasadeed Djibouti ugu horeysa oo waalaheena ah oo aan mar walba isku mowqif nahay aan mar walba is ognahay oo si kasta aan u tashanno calaaqaadkeenu hadda waa calaaqaad walaal weey waxaan rajaynaynaa mar walba inaan noo timaadaan sidaan oo kale iyo idinkoo ka badan walaalkeen Ismaaciil Umar Geelle naga gaarsiiya salaam wanaagsan iyo muxubbo naga gaarsiiya waan u tacsiyeynaa Allah u naxariisto Saad geeridii ku timid naxinta lahayd waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa Ilaahay ka baryanaa samri iimaan inuu ka siiyo familka ailada iyo guud ahaan
dadka reer Jabuuti naga gaarsiiya salaan naga gaarsiiya maxaan ku raahdaa salaan waaltiin naga gaarsiiya إن شاء الله دوله يراهدنا ساسي نوتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته